wafdi ka socda dawladda hoose ee gobolka Banaadir oo wehelinayo Malaaq Cali Maxamed Wehliye ayaa soo gaaray magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaana halkaas ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town. Malaaq Cali Maxamed ayaa maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa magaalada Cape Town oo magaalo xeebeed aad u qurux badan marka insha Allah Malaaq waxaan leenahay anta yani bayna ahlika wa ashiratika wa bayna ahbabika alladhina yuhibbunaka wa yuqaddirunaka leenahay fa ahlan bika wa marhaban ku soo dhawow. Welcome to your own brothers, your own sisters, those who loves you a lot man leenahay aad baan u jecel yahay marka insha Allah Malaaq waxaan ka rabnaa inta uu nala joogo nabad iyo reereed iyo wanaag baan u rajaynaynaa Malaaqeena weyn aan aad u jecelnahay oo magaciisa heeno oo haddana deemaanta nala jooga waxaan soo dhaweynaynaa Malaaq waa dhaqan oo waa duubka kamida Soomaaliyeed inaan soo dhaweyno xaq uu noogu lahay waxaana gudanay wixii annaga nala ka rabay akhyaarta soo dhaweysay waxaan leenahay waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol. Malaaqeena sharafta leh ku soo dhawow Cape Town welcome ya kuleenahay waxaan leenahay inagoo Soomaaliyahan marka hore leenahay welcome to Cape Town saasaan leenahay ku soo dhawow Malaaq waxaan soo dhaweynaynaa insha Allah walaaladeen Malaaqa iyo ninka la yiraahdo Yusuf oo yani inooga yimid wadankeeni hooyo waxaan leenahay hadii Ilaahay ilaa isku wada ujeedanahay duub Soomaaliyeed soo dhaweynay midkii kala bariitii ma soo dhaweynayna insha Allah soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada maxaba iyo walaaltinimo ku soo dhawaada diiran aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaad u timaadeen walaalihiin oo idin jecel maanta oo dhan idin sugahayay. Malaaq Cali Maxamed Wehliye ayaa soo dhaweynta kadib sheegay inuu aad uga xun yahay babkii dhawaan loo geystay Soomaalida ku nool magaalada Cape Town iyo gabi ahaanba wadanka Koonfur Afrika. Dhammaan martisalka qiimaha badan oo maanta halka isku yimid maanta waa maalin qiimo badan oo aad iyo aad u macna aad u faraxsanahay waa maalin bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town aad iyo aad u soo dhaweynaa aad u faraxsanahay soo dhaweynta qiimaha farax badan la inoo sameeyeen meesha aad ku nooshiin iyo halka joogtaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka barinaynaa inuu badbaadiyo dhibaatooyinka farax badan la oo maalin kasta idaacadahan ka dhageysanana waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed waxa macnaha ahaan ina la qaybsano dhibaatada iyo dhibka iyo ganacsatada Soomaaliyeed halka ku nool dhibaatooyinka madqara markasta meediyaha aan ka maqalna yaa waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed in la qaybsano xanuunka haya anagana waa idin dhibaatadaas in idin la qaybsano in idin mahad celino in idin dhiirigelino. ugu dambeyntii Yusuf Umar Ahmed oo ah agaasimaha xiriirka dadweynaha ee gobolka Banaadir isla markaana wafdiga ka mid ahaa ayaa dhankiisa ka mahad celiyay soo dhaweynta diiran. Dhammaan jaaliyadda South Africa gaar ahaan Cape Town waxaan uga mahad celinaynaa sida diiran ay noogu soo dhaweeyeen maanta halkan waxaan hubaa in ay yihiin dad isku xiran oo had iyo jeerba iska warqabo waxaan Ilaahay uga baryaynaa in dhibaatooyinka markasta halkan ka dhaco oo muwaadiniinta Soomaaliyeed soo gaaro oo ugu dambeeyay dhibaatadii ka dhacday Strand iyo arealkeeda in Ilaahay culayskaas naga dul qaado. Socdaalka wafdigan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan boob loo geystay ganacsato Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Cape Town nawaaxigeeda. Abdullahi Ibrahim Dasar warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town Koonfur Afrika.